تهنيد أما همبليو أن أدريو ولا شيء منال أو أي جبري ولا تيدل كان أنكسو هاي أستراليا وحن لي هاي أبتي صوبر بار أو نقطي دل كذا يدت كذا بأنفعله أهي ويا بنتها سماه وحن دوني إن أنكبره شخصي أهانقف كان هاي يعني أنت بدن وح أركت عنكم مدلنا إياه أنا كقصلنا إياه ويرتهي مركز أدبرني يصير قف أهانقف كأه سيدا ما أنت أكل لو ما بهنا إنا ديابتت aniga meeshan ka imaaday muqdisho ama aan ku soo barbaaray ama guriga aan ka soo baxay hooyada iyo aabahay ehelkayga yani waxaan arki jirnay gabdhaha anaga nala dhashay markii naloo furo yani nimanka noo fura ay kala tagaan markuu calaf ka dhamaado inta la cuni jirnay gurigeena imaan jireen true story yani walaashii Allah u naxariistay gabar ila dhalatay oo dhimatay wiilkii qabi jiray xitaa wuu dhintay yani caadi gurigeenu imaan jiray hadiyaduuna keeni jiray wuuna soo booqan jiray عادي يعني نقول ساسو كلا أنكو صو برباري أنا مجال المقدسة مشان كإمادي إن يعني رجع قبلها نفرة كبت عن عيارنا أنت عن لعنه عادي نقول ساسو كلا ما دام نقول ساسو كلا أنكو صو برباري وأنكو صو أخمي كسو وينادي كوكان جاري استيل أنا يعني وضدي بامري قبل أصلا مركي أنك لا تجني خاب كان وهاللي ولا لماذا لهيد شرفت لهيد ولا وذا وجا هي حدنا سيدي بيتاجنته هو واجب إسارًا أيام جودنيا ها وسيد اللي يقانو ضد كنسب كالصومالي ده نسب لماذا نسب جاب لماذا وحي ويقانان قبل كان على جت البدنية هاي أنا أسوي حنو أقانا قفك دقن كيس يعني قفك isbruug ee dalka Australia gaar ahaan qaybta hooyada iyo dhallaanka gabadhii yareed iyo hooyadeedba alxamdulillah aad ay u fiican yihiin tan iyo shalay hambaliyadu saas isaga soo daba dhacisay malaayiin Soomaali ah baa si dadban iyo si toosaba igu soo hambaliyay dhamaantii waxa idin leeyahay aad u mahadsantihiin sida ay sharafteen Allah idin sharfo halka midmidini kama xusi karo laakiinse hambaliyada shalay aan la sigtay oo mar la siiban gaaray oo la salbabaqay oo ilaahay hadda aan sidii laahay waa hambaliyada uu soo gaarsiiyay madaxweynaha qaranka mudane Xasan Sheekh Maxamuud dal xoreeye waxaan ku leeyahay hambaliyada waa ka haya Allah ku sharfo waa ku taageersanaa horena waa ku taageersanaa ma sha Allah baba Soomaaliyeed tahay sidoo kale madaxweynaha hore Puntland ana ra'iisul wasaare hore Soomaaliya Cabdulle Maxamed Cali Gaas saaxiib jira aadna u mahadsan tahay dhamaantiin waa idin mahad celinaya sidoo kale shirkadda wada shaqaynta fiican ee naga dhaxayso ee BC xawaalada ay shilinkaas u dhigto degdeg dalkiisa u gaarsiinaysa iyadana maamulkeedu ila soo xiriiray oo ii soo hambaliyay waxaan idin leeyahay waa mahadsantihiin dadka Soomaaliyeedna waxa weeye si toos ah bay idin kale inay adeegsan doonaan cusbitaalkii baan soo booqday horta gabadha tan waa gabadhii shanaad oo ii dhalata alxamdulillah rabbil caalamiin gabar kasta markay ii dhalato ilaahay waxa weeye farxad kale igu daraa xalay saacada yar ka bacdi markay gabadhu ii dhalatay waxaan gaaray 1 milyan Facebook muddo dheer oo ka soo xabadrinayay marka ma sha Allah taasina waa farxad kale mar rabo labada farxadood in iska kay jiraan gaar uga soo hadli doona marka waxa weeye dhamaantiin dadka Soomaaliyeed waa mahadsantihiin sida ay qiimeyseen Allah idin qiimeeyo hadda waxa weeye odaygu nin iska caan dhalayo dad badan oo meelaha wax iska sheegaya kuwa reaction la bixinaya wax walba waa arki doontaan insha Allah taala waxa leenahay qof kasta garaadkiisu hadla dadka ii soo hambaliyay waxa leeyahay waa idinka gudoomay inta isoo cayday ama si kale wuxuu soo tirina war ilaahay idinka عافيان ليهي أنا حقيقة عفس باكتين ولا ليال أنا شو دعينه والسلام عليكم ورحمة الله.